السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لما دقستيال كسر دوادا برنامج شفرة بدن وأنا صور شيء واحد إنه الإسراع في الصومالية. إما كان هو إسلا إسراعي في الصومالية يسودوينتي وريه كم ده ورياش وقعدون ما تعدين ويقولون قرن كجمهورية الصومالية ده كنا على الأردن وقبض runtii aad shaqadeeda uga adag magaceeduna aan idinku cusbayn arageeduna aan idinku cusbayn waxaa la yidhahdaa amal kayse oo iyadu aanu meel ka wada shaqayn jirnay markii hore imikana nasiibino ogaano halkan isugu nimin aan ka wada shaqayno soo nadin jirtay barnaamijkii la oran jiray doorka haweenka barnaamijkaasina waa barnaamijyadii ugu wax ku oolka badnaa ee telefishinka aan hore labadeedu uga wada shaqayn jirnay ahna shakhsiyaad ku caan ah indhaha Soomaalida waxa kale oo maanta soo dhaweyntan amalkiisa aan u dooranay in barnaamijka Israaca Soomaaliga uu ku soo dhaweeyo TV-geena Kalsan ay tahay maadaama aanu nahay laba wariyo horena meelagooda shaqeyn jiray imikana halkan isugu yimi ayaa waxaan ku soo casubay barnaamijkaygu inuu noqdo maanta barnaamijkii soo dhaweynta amalkiisa waxa dhinacayga midig fadhiya saaxiibada kaliya ee amal ay leedahay kuwa ugu cudoon magaceedana la yiraahdo Aamina Jaamac Xasan oo dhinacayga fadhida midigta iyo dhinacayga bidixda oo fadhiyo iyana asxaabteeda gaarka ah ee amalkiisa lana yiraahdo Axmed Jaamac injineer Axmed Jaamac Gurey oo isaguna dhinacayga bidix fadhiya iyo aniga oo ah ninka garanaysaan Cabdi Maxamed Xuseen Cabdi Godabees waxaaynu maanta bal doonaynaa asxaabtu haddii ay hadiyo jeer meel ka wada shaqeyso oo ay kala baadaan oo ay soo yimaadaan kulli farxad gaar ah bay leedahay waxaan aad boqolkiiba boqol ku soo dhaweynay amalkiisa telefishinkan Kalsan TV oo aan leeyahay mar labaad soo dhawaaba bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdi Goodon ku salaamaya marka hore dhammaan ummadda muslimiinta ee meel kasta dunida joogta baan salaamaya gaar ahaan guud ahaan kuwa barnaamijkayga xiseeya anigana ay garanaya adduunka daafiisa mar labaad waxaan salaamayaa maamulka Kalsan TV oo aad maanta aan ugu faraxsanahay inaan ku soo wareego TV-ga Kalsan TV maadaama uu yahay TV indhahaagu iyo aragaaguba waxun ayna qabanayn oo diinta islaamka ku salaysan waxaan jeclaaday barnaamijkayga xoog weynaa inaan dul dhigo insha Allah taala Kalsan TV oo halka bulshadeedii insha Allah taala igu xidhnayd ee halka kala socdaan mar labaad waxaan u mahad celinayaa Cabdi Good oo adduunka ugu jeclaa wariye aan la fadhiisto ama aan la sheekaysto ama aan ka soo wada baxna kamarad ilaahayna tiimaanta uu guuleeyay oo waa farxad labaad oo iyadan igu soo biirtay waxaan u mahad celinayaa kale dhammaan shaqaalaha Kalsan TV kuwa miyiga magaalada jooga gaar ahaan kuwa London jooga ee hawsha adag isku fududeeyeen dadka Soomaaliyeed ayna daawanaya ama bulshada Soomaaliyeed ay daawanaya u gudbiyaan sawirada quruxda badan leh wax qabadka Kalsan TV uu ku soo kordhiyay bulshada adduunka ku nool gaar ahaan kuwa Soomaalidan ka dhalanay aad baan ugu mahad celinayaa saaxiibada Aaminana aad u jecelahay xabiibti iyo Axmed Guro isna aad u jecel dhalinyarada aad iyo aad u firfircoon barnaamijyada insha Allah soo gali doon wax badan qabtana ka qabta wadanka UK isaga inta badan idin dhameyn doona aad baan ku mahad celinayaa Cabdi Good walaalo aad baad mahadsan tahay kulli kala dhamaan meelada xoogaa ka weyn wada joogeynaa insha Allah la deyn badan weyn si wada shaqeyn doonaa laba qof oo ma garanaysaa waxaan aad u yaqaana Aamina ku soo dhawaa barnaamijka wandowhay walaalo aad iyo aad baan ku salaamayaa maanta waxaan u joogaa saaxiibaday walaashay aad igu qaaliya amalkiisa oo ku soo dhaweynayno amalkiisa magaceeda dadku dhan baa yaqaana halkan iyo dibadda caalamku dhan baa yaqaana marka wax maanta amalkiisa qof loo sharaxay dadka maaha waxay qabatay iyo waxay guddi wala wada arkaya marka aad baan ugu faraxsanahay qayb ka qaato maanta program aan ku ag fariisto waliba aad iyo aad Allah yacasik Axmed injineer ku soo dhaw barnaamijka aad baad u mahadsantahay Cabdi Good marka hore ummadda Soomaaliyeed baan wada salaamayaa dhammaantiin daawadayaasha qaaliga ah Kalsan TV daawanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa maamulka Kalsan TV waxaan doonayaa inaan ku idhaahdo walaashayda qaaliga ah wariyada caanka ee Soomaaliyeed amalkiisa oon ku leeyahay hambalyo ku soo dhawow Kalsan TV insha Allah dadku waxay ka sugayaan sidii doorka haweenka Soomaali channel uga shaqeyn jirtay iyo sidii ka fiicanba inaad insha Allah soo bandhigto waxaana ma garanaysaan aad u soo dhaweynayaa inaad doorkan ku daraysid ragga marka insha Allah taana anagu waanu ka qayb galaynaa oo waxaanu leenahay ma garanaysaa annagana chance hana la siiyo runtii wax badan baanad u qabatay dumarka Soomaaliyeed walaalo hambalyo Allah yacizak aad iyo aad baan Axmed ku mahad celinayaa intaasi waa توفودينا لشوكتي. أمريكيس. عبد God. dadku way hada jeer laba wax bay ka kulmi dahay aad iyo
su-aashaan rabay inaan mar walba ku weydiiyo caawa janiska caawa jaanis baan u helay way dadku waxay yidhaahdaan waxaad keentay barnaamij aada u qurux badan runtiina barnaamij ah in bulshada soomaaliyeed ay barnaamijkaasoo kale la kulanto wax badan baa laga faa'iiday dad badan baad keentay run ahaantii midba midka ka dambeeya runtii dee telefishinkii waana xane telefishinkii horeynu joognay si fiican barnaamijka ugu cudoon buu ahaa barnaamijkaagu iyo kaale arag ahaa allah yacizak waxay dadku yidhaahdaan dadkan ay keento amaal xaggii dadka kasoo urursa amaalay maadaa dadka doonta ma meel gaaro ay dadkaasi fadhiyaan baad ugu tagtaa bal warna sidee baad u heli jirtay dadka aad iyo aad baan cabdigood kugu mahad celinaya waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan amniya axmed iyo cabdigooda waa horta ilaahay subxaana watacaala bini aadamka wuxuu abuuray hadaf nacam hadafku ilaahay subxaana bini aadamka u abuurayna hadduuna gudi kale maba galo cabdigooda markaan barnaamijka horta doonayay anigu amaan ikhtaarinaya amaan islaha barnaamijkaaba doorka haweenka usoo dhig waxaan arki jiray baahida dumarka maadaama anigu aan dumar ahay in badanna haweenku ama dhibaatada haweenka laga yani la iska qarin jiray ama la soo saari jirin la dhaafi jiray inaad isdul taagto la keeno ama dadku ay ka xishoon jireen inay soo bandhigaan dhibaatooyinkooda haysta maasha allah markaan diiradda barnaamijkii saaray waxaan eegay bal wax ka duwan haddaba tviyada kale ama dadka la wareysanayo amaalay soo bandhig dadku inta badan waxay soo dhigaan farxadday soo badiyaan anigu waxaan isku dayay inaan farxaddii ka yara bedelnaado aan soo dhiga dhibaatada dadka taabata nacam haddaan su-aashaad usoo noqdo halkaad amaada dadka soo urursata horta waqti maba hayaan qof raadiyo laakiin bini aadamku waxaan ku jirnaa waqti casriyan joognaa waxaa jira wax la yidhahdo facebook baa jira email baa jira telefoon baa jira qof la jecelna waa la iska raadiyaa marka runtii anigu maan raadin jirin ilaahay baa runta iga sarreeya laakiin waan dooran jiray barnaamijkaan qori jiray waan dhigi jiray facebooka markaan barnaamijkii aan doonaya maanta inaan ka hadlo waaba lagu yani qof يعني dadkii baan helayay marka dadka horta saan ku helayo saasay ahayd waan soo raadin jiray hadhoona waan kala dooranay barnaamijka maanta ugu quruxda badan ee maanta aan bulshada soo bandhigay ee wax taraya keebaan sameynaya iska soo daa maha barnaamijka cabdigoodo waxaan doonaya qofka dhibaatadiisii ma xalilay oo ma dhameeyay wallahi waqtigeyga iyo naftayda iyo caruurtayda iyo xaajigeyga iyo naftayda oo dhanba waxaan siin jiray barnaamijkan soo saarayo sidaan hadhow xalili doonaa ilaa qofka dhibaatada soo bandhigtid hadhow waxaan u baahanay xalkiisii we have to get the xal marka aad baan isku taxalushin jiray horta baadhitaba yani soo dhigitaankaba xalkiisii qofkan inaad iska keenin oo aan wareysan ka wareysan bal inaad xitaa xalkiisii ilaa intii aad kari karayso aan xalili karo ha qofkii uu noqdo meel intuu ku nafis xalna uu ka keenay xalna ka laakiin qofka inta badan uu kugu waafajin jiray alxamdulillah rabbil alamin aad baan uga mahad celinayaa barnaamijyo fara badan oo aan soo daayay oo xaqiiqdii guul aan ka gaaray baa jira oo aad ugu mahadnaqayo maanta anigu farxad gaar ah iyo barnaamijyo ugu dambeeyo dhowr barnaamijyo wallahi true story buu qof walba ilaahay ku barakeeyo ilaahay u barakeeyo ducada bini aadamka xitaa way ka dheeraadeen amal markaad imika la kulanto dadka noocaas ee dhibaatada hayso dabcan dawada soo wareysanaysan oo waa imanaysan nacam haddana si kastoo qofku wareysatay inagu isla fahmaynaa professional oo meel ka hadlaynaa nacam marka aad haddana qofkii aad maanta u soo wareysanaysaa keento stuudiyaha waa qof cusub uu kugu yahay oo kameradan iyo live-kan iyo waad arkaysaa nacam maxaa dareemi jirtay dadka qaar marka dhibaatadooda aragto wallahi markaan dhibaatooyinkooda dadka arko anaa isku dabaqi jiray anay taaban jirtay waxaan inside-kan ka ooyay jiray in badan baan ooyaan hooy dul iyo hoosba ka ooyay waayo dhibaatada qofka markaan dhageysanay aniga automatically anay taabanaysayba waayo waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala bini aadamka wuxuu abuuray qof walba ilaahay wuxuu qofna ka dhigay inuu farxad iyo qof xanuun baa lagu abuuray qof faqiir baa laga dhigaa qof qani baa laga dhigaa qofna yani mashkuuladan dad ku dhacaysa dad baa ku qosla oo markaan soo saaray barnaamijka waa qofkan uu riyoonay been buu sheegay kula mid ma laakiin waxaan bini aadamo lisma oga ilaahay qofkan wuxuu siiyay ma ogid ilaahay wuxuu kaa qaadi ma ogid qofku ilaahay wuxuu la kulmay ma ogid laakiin ma ku qabsan doontaa oo ma ku iman doontaa berri aad baan motion noqon jiray u dhex geli jiray cabdigoodo xaqiiqdii intii aad barnaamijka ku soo dhex jirtay ama aad keeni jirtay dumarka iyo dhibaatadooda ama ha noqoto qof xanuunsanaya ama qof laga qaaday caruurtii ama gabadh inna barnaamijyadii dareen jacayl gabadh ودرين هذا يشدني يقولون ما تدرين جعيل بيدون هاديات برنامج تدي درين جعيل كان برنامج كي كوجو ياب كبدنا وجعيلها وجعيلها كبر جعيل قبتي إن الله هاديات أنا وجعيل كهرت ده هرت الدمر كوا وضع جعيل سودني موقتي كوا جعيل كسر إسناد بدل كوا رمي لكن أنا كنت بدن برنامج كوها برنامج أو هنا لكن مت هنا أصلا هذا بايصوب معي سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم كان هنا سوى نوع من الجعيل اسباب هو تسميه نوع من الجعيل قبل ما شيء يسوى جعيل لكن واحد شيء قصة نبت جعيل كوجاتي يعني نكنا ماشي تشوقين مركان ضد دمر كان دفاع ترو ولا ودي جري لكن جعيل أنت إسوا مرتبة كلها دبعت المحاو كان وجعيل قبل بالحبين داوضي من جعيل وقبيسة هادية
oo markuu jacaylka la fogaaday xitaa habaar ku daqiiqdo aad soo boodo kolba subxaanaka ya cadiim salaamaad aad tiraahdo way jirtaa waxa weeye qofka markuu heedhe horta adduunkan joogno marka la isguursanay ama qof labada qof waa jacayl baa isu keena markuu jacaylka labada isu keeno xumaantu way hadhow xumaan way dhacdaa dad ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba waa calaf markuu dhamaado way calafka way nooc ka dhigaynaa marka waa kuwan dadka kala tagaya de marka watan dhibaato dumarka taabanaysa especially dumarka marka rag caruurta kaga tagaan walaalo dhaawacyo badan baa gaadha way isku buuqaan marka la guursado way hinaasaan oo waalida waa kuwan qaatay dad xaalad kale ku jiraan oo qofka dad moos qof caadi ah laakiin caadi ma aha laakiin dharkii uu gashay uu kula hadlayo uu raacaya laakiin waa qof hinaasay marka marxalada dumarka soo maraya marka marxaladii soo maraan jacaylka way qarinayaan iyo ko jacaylka dhibaatadiisii bay sheegayaan dhibaatadii jacaylka ma sheegayaan tii kale xumaantii dumarku inta xunun bay marka walba sheegaan wanaagoo dhan ba dhamaada marka habeenkaas un bay yani barnaamijka jaanis ula helaano xumaanta marka jacayl uu soo maray dumar fara badan laakiin de xumaan un bay inta badan u gudbin jireen waynu hakinaynaa barnaamijka aad iyo waxaynu hakinaynaa bilowgaan islahaa sheeg laakiin waxaan doonayaa kulli waxaan isla intaasu bilowgu dhaafay waay laba hablood aan abti wahay baan maanta idhi halkan waan idinka salaamaya maasha allah ka salaam Rotterdam bay joogaan Filsen Suez iyo Palestine Suez baa la yiraahdaa allah yacizak qolooyinkii la joogaan in badan baan hore u salaamay laakiin maanta salaanta labadoodu baa iska cid kala lama laha maasha allah allah yacizak waan salaamaya soo barbaar baan ilaahay allah ka gudubne dadku waxay aniga igu yiraahdaan heesaha halkaad ka keentaa way berigii hore aniga doondoonin jiray laakiin imika boqolaal bay dadku ii soo tuuraan oo sidaan isaga fadhiyo baan kala doortaa dadkan haday jeer miidiyaha daawada ee aan yani sida qoladeenan hor fadhida iyo dadka qolana way soo fadhidaa qolana way hor fadhidaa qolada soo fadhidaynu nahay qoladeen wax sheegtaa dadku waxay la yaabaan xagee ka keenaan laakiin run ahaantii dee waxaad arkaysaa marka hore dhibaatada ka dambe qof waliba boogtiisii barnaamijyada kala duwan ee tifiyada Soomaalida ka baxaya mid walba dadkiisu way la xiriiraan oo deedna intay ku soo diraan oo 300 oo heesood ka badan imika intan hayaa aad eegaysayo qaar caadi u qof si kale u arkaya oo oranaya heesta bal eeg hadaba heesta adigu caadi u arkayso mid baa kooraya maxaa taa ka mid waa kurtaas gareynaya hada afkaartu way kala duwan tahay marka kulli heesaha lagu soo dirayo dadka maanta waxaan doonayaa inaad halkan uga sheegto aniguna waan u sheegay aad u sheegaysaa waarun dadweynihii ama taageerayaasheedii aniga igu xidhnaa israaca Soomaaliga maanta dee barnaamijkii israaca Soomaaliga sugayay aad laakiin kulli waxay raali ka noqonayaan markay arkaan wariyo weyn oo aan hore loo wada shaqayn jirnay imika aanu Kalsan TV wada nimay amaalkiisu aad u jecel markaa soo dhaweeyay inaynu labadii barnaamij isdhex xiriirnay iyo soo dhaweyntaadii oo isku haadil kale halka ubaxyo badan oo saaxiibada ku keentay iyo keegagii hadhowta aynu dacwini doonaa inoo yaala ma sha Allah oo de saaxiibada ay saaxiibtada weli ku gudoonay iyagana hadiyadoodii kulli aniga way damaynaysaa hadiyadeedii metado mid gaar إن شاء الله كل برنامج كي يسوي دوينتي بدي هدية عادي عبد القادر تاسع والله ميد حلو الله يعيشك قف قال يدقوها هذا كله أمالي إن بدن من التلفزيون أفر سنوات اللي راد من التلفزيون كود شغالين ولي التلفزيون كامل ما يناسوا ولا فريسة ودعاوة كل شيء فرحد وعجيب بانكوري حتى بلو فيرسو سنة كعصب أفر سنوات هي ديرات أي نوت سومالي كنا ولا شوفني نعم ولي ما أنا نصفر فريسة منها سيدا ولي كمان نصوّد بحين أنت واحد ما واحد هدية غالية مركها ها ما تصبح من هرت مكر عنو برامج كي دمر بوك حدنا هوين بوها برامج كدور كهوين كي واحترك دمر كوها لكن مكرجي بس أوجلي waxaan u badanay xaq rag doorkan marka waan isku badanay adiga aan kugu horeysanay barnaamij madama abayaasha xaqiiqdi abayaasha yani marka bini aadamku wallahi ma aha walaalo wax yani mid anigu maanta ka sheegay ma aha maan oranay waa mid adduunka dhan ku ogiin barnaamijka aan ugu horeyn doono insha Allah taala Cabdi Goodow waxaan doonay aabahan ka soo baxay kalmadiisa aabo waxa caruurtiisa koriyo haye ma ku nala socda marka waa mid lagu marka am soo habina maanta kula ag fadhiyo waan insha Allah aniguna waan ka ogolaaday barnaamijka ugu horeeya xaq ragga horta balmur anaan ilaahdo amaalkiisa ragga ana ugu horeeyo wax wanaagsan ومقع كله وجاني صح نعم وار مركا هرتو مركي ugu horeysay telefishan soo wada fariisano taasaaba record ayana subhanaka ya adim hadiya jeer waadiga arkay imika fanaaniintu nacam fanaan waliba wuxuu dhadaa fanaanadaasaan doonayna la heeso fanaanadaasaan doonayna la heeso anigu hablahan dooni jiray inaan mar telefishan ka wada muuqaalad kamid ahay dadka Allah ya waa sharaf wallahi gaaran waayo qofku wada arki kartaa khad baa ku jira buud injineerkii ma xagga telefoonadii loo wareegnaa insha Allah taala diyaar baa hello assalamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسر دو برنامج كيس راعي الصومالي يسوي دوينتي أمل كيسي عبد قولنا روان دو ما أنت فرحان ما يبغى دوينتي برنامج شاو مركو روحي سرعة بنا وريد دنا عنك هيدا أمل كيسي ما أنت مرتينه الله يعيشك محاد نقول سوق الناس على كذا سؤال مقعد برنامج شقاد وعم بحب يسوي شيء اجتماعي واجد توكتين صومالي channel برنامج دي واحد كله قبل رجع شنو يقول سيدي برنامج إنتي لا فلاي أي برنامج حسوس فربنا هذا ما عرفت يعني بين سلاحة المرة ما كبح بين رسول شيء جرتي مقعد أي شيء كرته يالك كسر الله الله يعزك ولا
والله magacaygu Axmed waxaan joogaa dalka Norway magaalada Bergman joogaa allah yacaysak axmed maxaad markaa nagala qayb qaadanaysaa maanta hambalyada amaal mooyaane deena waxaan kala qayb qaadanaya kulli subxaanaka ya cali marto barnaamijka dawaan sii fadhiyo saacad ka hor baan sii fadhiistay waxa joogtay damar walba barnaamijka waa barnaamij si gaaran ugu dheer maanta waxaan kala qayb qaadanaya soo dhaweynta iyo hambalyeynta iyo maaragtay farxadda amaalkaysa weliya nacaanka allah yacaysak maada allah yacaysak aad baad u mahadsantahay anaguna waan kula salaamayna allah xafiidka waan kuleenahay assalaamu calaykum ay walaal khadka labaad baynu balu geli doonaa hadda xagga teleefanada aynu odhan doonaa bal hadda amaalna maxal dadku weydiinayaan maanta waa chance inaana keligeen la weydiinay bal hadda amaal iyo doorkii haweenka iyo xisaabteediina bal hadda inaad weydiisaan khadadka teleefonkuna kulliba cabdi goodin yaraan kuura noqday waxaan weydiinaya amaal inkastoo adigu su-aashaada iga horreysay amaalkaysa barnaamijyada soo diyaarin jirtay inta badan waxaa barnaamijyo aad qiimo badan u leh sidii aad u weydiisay si lamidin baan u weydiinaya amaal barnaamijyada waqti intee leg baad gelin jirtay runaantii barnaamijyada soo diyaarin jirtay waxaan barnaamij waqti fara badan iyo cilmi badan iyo dhaqaalo fara badan mararka qaar buu cunto leefa meesha lagu karin jiray maykabyo fara badan waa runtaa maaragtay meelo fofo iskageeyne wallahi barnaamijka ugu qiimo badan baan oran karaa ka bixi jiray tvda afka soomaaliya ku hadla waana qof aqoon-yahanada maaragtay mararka qaar dad muuqdo kale ku hadlay keeni jirto dee hadaa nooga tusin jirtay markaa bal barnaamijyada nooga hor inaad arsay kugu suurtogeli jiray haddana ba maxaad noo haysaa doorka ragga axmed ragga iyo waxtarka raggana kusoo darinaada axmed horta marka hore aad baan kuu salaamaya walaal waad mahadsantahay boqolkiiba boqolba sida quruxda badan laad nagala soo qayb qaadatay ama aad runtii yani si wanaagsan oo ammaan aad ii sheegtay waad mahadsantahay walaalo anigu barnaamijkayga runtii waxaan horta ka dhigi jiray waxaan u ahaa daacad dadna waa dad iska hadla dadna waa dad wixii ay ka hadlayeen garanaya macnihiisa marka anigu waa waqti badan baan gelin jiray aniga xitaa lacag gelin jiray caafimaadkayga waqtigaan gelin jiray waana ka shaqayn jiray week dhan baana ka shaqayn jiray intaan bulshada usoo dhigin waayo ma doonayo inaan soo bandhigo barnaamij aanan hubin ama aanan ogeyn waxa hadhow iga imanaya dhaawac qofkii baan baadhi jiray maskaxdiisa inuu caafimaad qabo waxaan uu sheegaya ma wax runaa markaan baadhitaanka galo baan ana isleeyahay haddaba amaalo barnaamijkaagii waa kan wuu habboon yahay soo daa waqti dheer iyo juhdi dheer baanan gelin jiray iyo caafimaad fara badan xaqiiqdii iyo runtii وانا برامج كان سود دبعتي أن سود أنا أسكت بقى أو لا أو يجري والله العظيم ونفتح تحت مرو بقى جري لكن الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يقول يسير شن سنة وسوى برامج كان إنك واحد لا رجي بقى يكون هذا ضمر كده عفاي بل هذا رجنا دور كودي عن سي دور كانوا رجل لما ظلمية بل هذا رجع كقعدنا ضل هو يكون صوصر لكودي قد بنكون سلام يا أحمد ولا أحمد هل كادوا يقول هذا بل هذا خد كلا بعض يجي دونا هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله المجا عندي هل كتكسر على لسانه شيء. والله المجا أيوة هذا بشير فارح أو مهب. هيا بشير حاجات كسر على لسانه والله. واحد الله والله ودك السعودية العربية. ما شاء الله. واي والله ما شاء الله هذا بشير إسراع يا سومالي دور كي هو كان ما أنت يسكت شراء يد سؤال ويديني سيادو قبت سؤال شا عن شعلان هو اللي ببره ده ما لنا ويديسو سؤال شا هذا. horta waxaan si gaara u salaamayaa cabdi good oo maaragtay barnaamijkiisa marnaba aanan ka hosficin oo si fiican aan u daawado allah yacaysak allah yacaysak waxaan salaamayaa amaal kayse oo iyadana maaragtay gabadh aad iyo aad firfircoon oo maaragtay gabadh yacni magaranaysaa tisqaadkaysa labadeeda wax laga daydhayso allah yacaysak allah yacaysak walaalo waxaan salaamayaa oo kale labada kale ee آمني يا أحمد. آمني يا أحمد. مرتين مرتين صح وأنا كاقع عند المانطقة إلهي كشرفو ما حد قال غيب قادر يسمع برنامجك والله المانطقة بشير عبد جود كل واحد اللي ما أعرف جيب اللي بدنك وبنيا بقول هاي ما أعرف يعني حاجة أريجا أقولهم حاجة سوق الربينا وحكاوي ديو وحي هاي يعني فنانيتي هراء الصوماليات ما أعرف بديه سود وان أنا حقيقة عن يعني مرة بشير عن كان أوريك ويقول يعني هذا كبر سوقات فنان كله هذا التردي أو كله سيسا يعني سيس وعرفت هاي سيس كسر ما جيت عن فقراء يعني ما أعرف فين الودي إذا ما قلت يعني في اللورة دي يكل ما أعرف عارفين أنا أقول التردي والرأي إنك سنة ماشي هنا كأني قبلني يعني حاجة أوضح من أولاد لكن أنا يعني كل عليهم وقفتنا حاجة مننا كافة إنه وما أعرف إلا جمع رمان نغطي. وصحوي هرتا إنتنا سؤال هذا كتشوابين إنا لله وإنا إليه راجعون. تعسيد الجريدة. وحان تعسيد قدر يا dadkii helidii qaraabadii uu ka geeriyooday fanaan aad u weyn oo culus maxamed axmed kuli oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa
waxaan leeyahay ilaahay naxariistiisa naha ka waraabiyo kulle islaam wadda islaamka uu soo wada duceeyeen shakhsi wanaagsan buu ahaa aba wanaagsan buu ahaa aqoon gaara oo mid ay aabahay isu lahaayeen iyo mid aan anagu isu lahayn baa jirtay fanka soomaaliyeed waxaan markaa leenahay dadkii eheladu ka geeriyooday oo ku jirnay inaguna in ilaahay sabir iyo iman ilaah ka siiyo ilaahayna qabriga ha u nuuro ilaahayna jannadaha ka waraabiyo amiin ya rabbil aalamiin intaa ka dambow bashiirow كله وكبح بشير لكن وحنا بقول لأنه هون دي بعض ما ستة إلهي ناكو شرفوا ده شرفتي دي بينقول لك أنتوا نتجاوب تاس خدك صدحات بينقول لنا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم والله المقعد قال قد كسر الله يسوع قودن ويا كسر سويدن أوكي قودن قودن سويدن محل قال غير قادر سوال باي سود والله نحي ما شاء الله الله يعيشك تي في كان تي في سومال لا نقضي مركا ما شاء الله ما كداتا والله تي في سومالان قال يقول دولة سومالان واحد لدى تي في لها تي في غير سومالان تي في كانوا تي في برايفت ده واحد لدى كلسن تي في وتي في سوماليد وين ومدة سوماليد ملكي سيجوكتنا أي تاي هل كان كسوت شدي هل كان كسوت شدي مهمد سومين ما يسوي واحد كحل ليني واحد سوت شدي نبى مهمد هاي سومين ساعة مركا واحد كله قولنا ما تي في سومالان هو تي في سوماليد صاحب بعد ما صدق أدو مهتسين هذا كان سووا كله ملا مركونا أنا قلنا صابي راي مركا أنا وحن دوني الصومالي ده وش كلمة تقول عبد قاضي هذا دوني الصومالي إنه نقطة وحشرة أو نول أو عقل في يولي إنه نكرر عنا في عن دنت جود أو تجار الإيجن أو ضدك إنه لا ترتمينا نقون صومالي إسلا ترتميز إنه نقطة لا ترتمنا ضدك الدنيا ده ضعف أحمد صدق عدان كوكليو عربها taasina waxay fariintii amaalkiisa ay taas ma aad u jecel Soomaalidu ka dhacdo insha Allah waana ku macsantahay khadka afraad baynu eegaynaa bal hadda intaan balada telefoonada inta inoo imanayaan maali Cabdi Godo barnaamijkii kuugu cuslaa barnaamij hello salaam calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso سعيد حاجة سعيد بلدان كسر مينيابلس oo mareykanka minneapolis waa saaxiib aad waa meel dad qaaliya dadka mareykan aad baan wada jecelahay soo dhawow saaxiib gamco furan ku soo dhawow maxaad nagala qayb qaadanaysaa siciid adiga gool hayagii caanka ahaayeen maaragtay maanta barnaamij aad u fiican noo haya oo noo daadihinaya allah yacisag dadkuna sidaba qofku hadduu wacan keeno mucaarad ma waayo marka waxaan ku oran lahaa waxay ujeedinayaan dadka mucaaradka ah wax waxan baad xisaabiga amalkiisada runtii oo aada looga faa'iido dad badan ay dhan yihiin oo maaragtay marka barnaamijku soo geliya laga xisaabtamo marka halkaas insha allah dadkan soo hadlaya leh somaliland buu noqday dee ma fiicna ma wacna waa dad qofka iyo markaaragtiisa waxba siciid u dhaafamayna iyaga way noo jawaabeen الله يعسك سعيد السلام يا أمان سلام قفة كلام مرتضى هريري مسرينا والسلام أهلا يا أحمد يا عمنا هذا يقولوا لكم سلام يا عاد بنقوم هذه اللي ننكا أمان هاي عبد القادر سؤال بدي ودي سؤال شو كوجي يابك بنديد برامج مسا برنامج كاجا أنت هدودي دور كاوين كبرنامج كوجي يابك بدنا عبد القادر ما وحنا شن سنة سووا ذا ما أنت متكسر دورته هي كل ما يقول يا بدنا أعطاه تشيء واي وحي وضع هاين أنا قلت وحي يقول يا بدنا وحي يقول يا بدنا حقيقة دي مركز رنت كهذا أو إلهنا كعب صدق ولا لا أو صدق عدنا ده مش يجيو برامج بدنا بيقول يا بدنا أو وضعها قصوي النبأ لكن تيجوا يا بدنا واحد قدام بيسي أو إن اللي جبي أو ده يراء أو اللي جبي sidee loo gubay dhalinyaro gubtay yani ma dhimo way nooshahay ilaahay uu ka saaray dhibaatada way nooshahay alxamdulillah rabbil loo duceeyay qasada kale iga yaabis waxay tii tahriib tahay hadii aan ka hadlo tii sixirka ahayd qolada reerka la sarxay cajiibka ahayd taayna gada sixirka gada bismillaahir rahmaanir wuu jira Cabdi Godo ka yaabin rasuulkeena subhana alayhi salaatu wassalaam waa la sarxay oo sixirku wax jira dadka aan sixirka amoodin inuu jirin وين أوجادان ووجرا سحر كلام طبعاً بعوضنا كنا ولا يكون حتى عادي هنا لا كشان آخره دو مركز سيد تدك واحد سحر تدك واحد سحر حياتك حقوق من آخره دو وجهين يا وجهنب يا جحيم
jaxiin baa la gelinaya qof walaalkiisa wax u sameeya ama ka makhruuq noqda xitaa noloshiisa ka xumaada xitaa anu waxaan arkay cabdigood oon ka yaabay barnaamijyadeen sii daayay qaar dhaba oo dadkii ugu dhowaa dadkaa dhibaatada ku dhacday ka xun subxaanaka yaa cadiim aan ka yaabaan bal maxaad ka faa'iidaysaa walaalkaa maanta dhibaata ku dhacday ama walaashoo dhibaata ku dhacday dhibaatadiis ma laga yaaba cabdigooda inay adigana kugu maqan tahay somehow ama ilaahay subxaana watacaala ku dheereen ama ku haya ku maqnaatay marka yani waxaan u sheegayaa dadka inuu ilaahay subxaana watacaala ka baqan qofka dhibaata ku dhacdana lagu higsan halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum عليكم السلام سلام سو دو مقعد يالك كهدليسو ولا العبد قول واكو سلام يا والنظيفة على النظيفة قرن آد أيام أغو فرحسنا هاي إن كلسن تي في أما وصو بيركان أديقا إيو مروة أمال كيسي دورك هوينك آد حدانا هاي هوينك فقرن كصومالي دي يوكي وان إذين همبليينينا أمال كيسنا وحان لي أمالي دورك هوينك واميس قريني صومالي جنال hadda waxaan u baahannahay oo aan hambalyo ku leenahay adiga cabdi goobba ku soo dhawaada kalsan tv waa tv-gayni waa kiini waa kii soomaaliyeed waa midaan la kala lahayn waa mid loo dhan yahay ku soo dhawow amaaley hadda garabkaagaan taagannahay haweenka qaranka soomaaliyeed ee uk hambalyo amaalkaysaay wax nool nadiifo aad baan kuu salaamaya nadiif waxay ahayd hablihii qaranka soomaaliyeed barnaamijyo badan bay kala qayb qaatay xaqiiqda runta waa qof aad iyo aad u fircoon siyaasadana ku xil dheer نظيفة waxaan ku rajaynayaa sanadka cusub inaad madaxweyne noqon doonto insha Allah taala walaal aad baan ku salaamay saaxib aad baan ku salaamay ay khadka kale ay ugu gelinaa nadiifa waadi aad baan maasantay ilaahay ku sharfo hello salaam alaykum hello salaam alaykum telefoonkaas aan wadaha kana hadde ay markaa waxa tiri sixirku jira cabdi goodo uu jira wax jira oo dadkeenu ayna kama dhaadhacsanaa waayo qofku hadduu diintii garanayo rasuulkeena subhanahu alayhi salaatu wasalaam waa la sixray iyo waa la falay ma isku mid ba may waa la sirxayo waa la falay waa yara kala ma laakiin isku soo dhawin qofka la falay wax loo qabto sixirkana qofka la sirxo isagii la isku mashquuliyo ama nolosha marka qofku loo quudi waayo walaalo ama dadka ilaahay wuxuu siiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qofku doono waxaan ka dhignaa caruur baan siinaa ibno qofkan doono hablaan siinaa qofkan doono baba siinaa aqoon baan ka dhignaa laakiin dadkii baana aaminsaneen laakiin dadka waxa dadka ku sameynaya haday noolaadaan iyo haday joogaan iyo ubadkooda bay u dambaysaa marka aan waxaan doonayaa qof wuxuu falaya ama qofku wax ku sameynaya khaafu min rabbikum ya ikhwani ilaahay ka baqa leena maalin kale bay meelun kaaga mid doontaa inna badsa rabbika la shadiid ba socota inna cadaab rabbi la shadiid ila cadaabti ilaahay way weyn tahay haday ku dheeray ku gaabatana way ku dheeraanaysaa nafsigana la iska ilaaliyo bini aadamka xaqiisa oo qof shaqaynaya xitaa oo dhididkiisa kugu shaqaynaya inaad xaqiisna iska waxyaabaha subxaana la iska ilaaliyo laakiin dulmiga qofka la dulmiyaa imka cabdigooda intaas oo taageerayaad leedahay intaas waxa leedahay mucaarada adiga maxaa ka galay magac baa ku soo kordhaya bini aadamku waxa la nasiibaki إذا اجتمعت الإنس والجن بالله هذي جنك إنس بيسون هذان أن يضروك بشيء لا ينفعك إلا ما كتب الله لك إلهي وحي كقرن بقول عليه بلا آدم كهدو يسكهر لنا وحي هذا عرفت الكلام لا يود ولا يأخر يعني هذا بلا آدم وحنا ما سمعه وحنا ما قبته كلام لله مش في النهار ولا ها waxaan tiraahdaa carabto kale ilbaab yijik riix sido isla albaabki kaaga imanaysa hawada xulay ama hadalka waa la iska xidhaa qofka marka xaqo marka bini aadamku waxa fiican qofka wax qabtayna waad qabatay ilaahay marka ka sareeyo walaal dadku isku wada maaha aragti bulshadeenu maaha dad u wada bisil nabadda dad waxa jira xumaanta jecel ka shaqeeyaan dad waxa jira inay xitaa dadka jalas ku noqdaan waxaas oo quraanka lagu wada sheego waa calaamad suqra la yiraahdo waxyaabaha in dadku aan ka dhaadhacsanin laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka wixiisi isagu si istareedo wada si daacada u wada waxba kama kharaabaya illa bari hadii waxba lagu akhrinayo ilaahay wuxuu qoran laakiin waxay ku imanayaan marka siira wada adiga laftigaaga waa siira dhaaftaabay waxaan lagu dhacaya laakiin hadaad marka hore ilaahay u socoto qofka salaada ilaahay iyo sunnihii kitaabkii rasuulka raacay sunnihii waliga ya allah cabdigoodo ama dadka xitaa wariyaasha ay daawanayaan sheegaya ama TV-yada kale sheegaya wax walba inuu waxaan dad Soomaali waxaan u baahanahay walaalo bulshadeenan aad u daalan ee maskaxda ka daalan ee aqliga ka daalan ee jidhka ka daalan inaynu wixii ka biirno oo madadaalo fiican wax ku qaataan laakiin qofka maanta oranaya qofan ataagaya ama TV baan ataagaya ama maamul baan ka sheegaya wax uu daalaya waa wuxuu ku daalaya isaga qofkaas isaga waa rulo uu daalaya aynu ka gudubno aynu la talaabsano dadka kale carabta ingiriiska adduunka gaadhno su'aal kale ku weydiinaya maadaama barnaamijka Israaca Soomaaliga doorka haweenku maanta wada joogaan si fiican amaalay
waxaa jira dumarkan heesa ila waa doorkii haweenka nacam dumarkan heesa waaya qaar iyagoo aan heesaba tirin iyagoo qaawan masraxa yimaada subxaanaka ya cadiim iyo qoladan heesto oo aad adigu is odhanaysaba malaa iyaga wade ma aqaan malaa kitaab kalaa de ki ilaahay kama dhaafin kitaab kalaa lagaga dhaafay asturaada ودولة دي وارنا إن أسترون وهستا ويرتي واحد مودا أحمدو إن يجا ملا كتاب جونية كتاب كيف فنك ويجا أستراد ودي دي إلهي سهلوني ولا رح عاي منه ما يا والله ما يا عاي منه وينو كرساس كرينا تانا حق بينو لنا نعم دور كوين كم حد يقول سوق هذا ويدت كوا ورا أنا وهرت فنك إلهي ورت شعله وانشعله بينكم مش يجاي هذين نقطة ضدك قاون هرت قف الباع عذابتيسي حسابتيسي سعرنت انك waxba naga magal laakiin waxa wanaagsan oo qurux badnaan la xaqiiqda marka runta laga hadlo anako cidna ka baqayn ilaahay subhanahu wa ta'ala abuurtaan ka baqayn hal heeso oo muxma laakiin marka isqaawisid maxal la heeso bad qaawantahay yaani subhanaka ya abdi kalada dagay yaabisay hada kalama ka sacaabsanayn iyadoo marka hore muusigaasi horta la isku hayo xaaraan iyo xalaal ku yoo xaaraan boqol badan yahay hadana daahriya shamis waa la casamaha ka war hadaa tahay doofarka مرقس عب isagana hilibkiisa waa taas oo kale marka fanaaniintu fanku uu jira walaalo oo fanka hidan leeno dhaqan been video waxaynu ku soo gaadhnay meeshaas laakiin adigoo muduga ka daawadana adigoo muduga ilaa mudugi maaha hada dharku iska saar gabadha hadii tinteeda la kor waa mudug waa sinada sama waa zani hadii ay qaawan tahay waa zani marka wax weyn mudugu dharka uu dhigan maaha inta la ogol yahay mooyee in kala haday banaan tahay daba bahod qaraabe ma waxa laga yaabaa dhalinyaradan iminka cusub ma waxa laga yaabaa cabdi xitaa dhalinyarada iminka cusub inayna garanayn ba ay ku reeyun bal heesun sii daayay oo dadka madada wax soo wixii ka duwan marka galbeedka waan ku lunay teenu ka tagna ila doorkii haweenka qaybaha lafteeda ka qaato insha Allah ta'ala in ka soo fanka waxa jirtay imika waxa ku soo kordhay ba amaalay dumarka qaawan baynu ka hadlaynay adda kale dumarka qaawan baad ka hadlay ragina way soo kordhay qaawanaantoodi ma insha Allah qaawanaantoodi maalin weyntu la baxay wixii muraad soo taagay أنا كاسن كيني ما إن شاء الله وإحنا ورانا هذا إنك فنكيننا نكون سيداران وفنكينا كل سنة مر هدي السوداء ويني مدحويني مر هدي قرن لسه وإنك هيسا هي فنكينا محما أو نشعلنا هاي لكن بالأسطورات لكن واحد ها أسطورات هو تعرف رقص قوي ما بعرف بقى الله أكبر رقم أرجع حقيقي سبحانك يعني مين بكيتشنا إن ما ضن دايرة دايرة حوجة تسي عضلات كسوا إن أنا دي صورت فاحش كوين معها وإن كده إن أنت اسكمد معها أيوة واحد اللي حضرت أنت كوس يسالي وما أنت سوداء في سوق بسم الله الرحمن الرحيم تصور بدك سبحان الله هذا كلام مركزي أنت صورت هاجي مرايد يا أبو سالي مركزي ولا حد متابعين كل يوم مرايدة you look good war hadda waatan kula reer galbeedkeena lumiye cabdiyo reer galbeedkeena lumiye laakiin waxaan ka inamada dhalinyaradan waan jecel fanaaniinta mana kama sheegay wax laakiin kuwa ilaa xundurta ka dambeeyay ka soo noqdo intan hadda dhisateen oo daa waa ma sha Allah inta cadalaad ka muujiyeen ma yay muujinin maya de rag garan deexda iska caad garan iyo wuxuu daad laakiin dadkii kale ma sheegin ila rag laftooda asturaad wala way haysaa dad baa moodayna inay rag waxay doonaan sameyn karayaan ma sameyn karaan labada jilib iyo xundurta inta u dhaxaysa adigu ma muujin kartid ninku nacam هذا في رسول بريجي بابا نسلا بطلوا عند الرياضة هنا كبدا نجلس كجابان كبد كعيار جني دائما أنا نقولنا هذا إلهي وانا قلنا في إن شاء الله تعالى ما إن شاء الله يكره كبرنا نعبد إلهي سبحانه وتعالى الضمر كان إلهي يعني ها لكن هذا كل يوم برنامج كدور كهوينكو بل إنه هذا تا إنه أهل كاد يعني الله ولا الله ما هو حقيقي بالآمن هذا قبل هذا كسر دو بالآمن هذا قلنا هذا كشجع عوض برنامج كاد دمر كاد جريا ما هي نوية ده ولا كرينا والله يا واحدة كان أنا ما أعرف واحدة كان أنا ما أعرف لكن وش عشان قفوا إنه أسترو أن هي صح يوم إحنا هو كلتشر كينا صح أي كميديين لكن أستراد وهل كذي أستراد وهل كذي أول اللي بده هرتا بل يعني إمك واحد أول واحد نسكو هنشري قبل بقاون هيك بقاون بصوب هل كانوا مرينا أو أمالي دولة كسا والله عبد القادر ما وحوين عبد وحيسلين دليردين وحيسلين أما فنانين وسترنكي راعي بصراحة وفي عام وين وقاعد نقول كل ضيضان كان في عين ولبا حتى يعني هذا الكاميرا كان لقوه أمريكان عمل لقوه عربي عمل كصومالي قام معان إيه يروح يبه إنك دبعتها هاستوى هذا وين اسكت دوبنين إنك واحد هذا ما بالبك لك عبادة يا كقيل لك يسير برنامج كان حد صوص عضو كله تاجريش إذا نلوسي شيء يا برنامج كسر عصبة حد صوص عطا واحد إنه كهالله صدق قاب سبيشال لو طلعنا قنداف ما إنه كي قاعد نكوع اسمه بينك وقهر إن شاء الله تعالى بلاك هذا وحيدي أبوان من الحميستي موسيشن كيو قراعيو إيو هساقي هل أنتي بنين بعوض الله ما شاء الله وي ما هانترين نلاشو واحد يكون في عنتهاي
wadaaga wadaagna wada kala inuu qaybsan nin kale laxan kuu soo sameeyo wixii baa adiga kuu TV koobnaanayaan gaan joogna kalsan TV wada aragtaa maamul buu leeyahay teeda kale waxaan ka soo sheekaynaynaa waxay la wada baxeen magacyo waaran magacyadaas ingiriisi maaha waaran iminka aad waxaan uga mabsaday inaan Caydruus la yiraahdo Caydruus haliyey buu yiri haliyey waa magac Soomaaliyeed oo magacyada ugu qiimaha badan La xad. it's good laakiin marka waxaad arkaysaa sir queen princess king waxayna shaqada ku lahayd hadda u fiirso waa waxyaabaha iminka sabti hadda soo socota aynu kaga hadlayno iminka ereyada iminka queen iyo sir iyo waxa weeyaan ereyada diimeed weeyaan صح hadda u fiirso marka cabdigood waxaad leedahay adigu hadaladeeni iyo magacyadeeni Soomaaliyeed runta hala bixeen dee fanaanku miyaanu hayn nin lagu daydo waaran miyaanu hayn muraayada ummadda waa sax okay heestu qaadaya magaciisuba soo waxaan kuma tali maayaan وين اسمه تلان انت barnaamijyada dadkoo kale imika ilaa 8 wiiga soo socda waxaan joogaynaa halkan waynu aad baynu falanqaynaynaa aad iyo aad mur hadday ka qaraadhahayna waa sii deynaynaa laakiin fanaankii maxaa lagaga dayday bal waxaynu keenaynaa amaaley fanaankii baynu keenaynaa maxaa lagaga dayday wixii wanaagsanaa lagaga daydayna waynu keenaynaa wixii xumaaya lagaga dayan waayna waan keenaynaa yuusuf shaacir baad aragtay waxaad aragtay weersamaad aragtay cabdiraxmaan nabeys baad aragtay waxbaa lagaga daydaa ما شاء الله waynu keenaynaa raggan kale waynu keenaynaa iyagu bal hadda abwaanadana sheegtay maxaa adna lagaaga dayday nin walba heestiisu ma wax lagaga dayanaya soo maaha nin gabadh walba araggeeda iyo nin walba araggiisa wax lagaga dayanaya waa inaynu markaa keennaa maxaa ninkaa lagaga dayday bulshada Soomaaliyeed ka qarin mayno نعم heestaynu dhigaynaa waxay leenahay war ninkaa waxaasaa lagaga dayday gabadhana waxaasaa lagaga dayday khadka telefoonada ayaynu gelaynaa bal hadda telefonka toddobaad baynu qaadaynaa hay assalaamu calaykum hallo عليكم السلام walaal magacaaga halkaad ka soo hadlaysay marka hore aniga ha walaalo waxaan ka soo hadlayaa carigan ingiriiska hooyo Soomaaliyeed baan ahay الله ingiriiska ka halkee Birmingham ha ingiriiska ilaa waan kula joognaa anagoo London baan joognaa ha walaalo waxa weeye amaalkaysa waan u hambalyeynayna waxa weeye waana miskaraystay haye marka ma sha Allah mar hadday maanta noo soo noqotay doorka haweenka wax badan ayaanu la qiimeyn jirnay marka waan u hambalyeynayna الله يعزك aad baan kugu mahad celinayaa hooyo Soomaaliyeed marka cabdigoodna mid baan oranayaa he dee waxa weeye dadkii wax ogaa baanu nahay dalkiina garanaya carruurtan qaawan maxaadiro wadaad u soo fadhiisiya waayo luuq yar bay lahaayeen dharkiina ma garanayaan qodo kantaroosho ma haystaan wax ceebta u sheega ma garanayaan marka waxa weeye waa ubadkeeniyo mashrax taagane allaha soo hadeeyey allaha soo hadeeyey allaha soo hadeeyey midda kale wiilashana waa qaawan yihiin waayo wiil nigiskiisii la arko oo kaasii jeedo dabadiisii banaanka joogto waanu aragnay iyagana u maxaadireeyo iyo nin fanaanoo heesayo surwaalku miskaha u joogo maya kaa dabadaaba anigo aan ka warwarsanahay subxaanaka ya cadiim ha xaggii hore aba la qaatay xaggii dambay buujiyeen ha waa min ayaati subxaanaka ya cadiim intii ugu muhiimsanayd buu muujiyey waxa weeye gabadh guursanaysaana ma jirto cid rabtaana ma jirto gabadha qaabana cidima rabto waa sax waayo macdankiibuba banaanka dhigay macdankiibuba banaanka dhigay mahadsantihiin caruurta u caqli cesha waaniya wadaad kalsankiisii soo fadhiisiya in badan mataqaanaa maxaadirada ha lagu badiyo caruurtana ha la habeeyo mana haysano dal inahaga waqti inahaga qurba joogiska balanbalaysayna daawadayaal ama dhegaystayaal mar labaad iyo barnaamijkeena Israaca af Soomaaliga iyo soo dhaweyntii amalkayse waxaan doonaynaa inaanu arrin yar ku soo gabagabayno horta aniga oo ka wakiila dhammaan shaqaalaha TV-ga Kalsan TV meel kasta ay joogaan Aamina Ahmed dhammaantayo ayaa waxaan guddoonsiinayaa hadii ugu qiimaha badnayd ee aan guddoonsino walaasheen amalkayse waxaan leenahay welcome soo dhawow leenahay horta faraawalka cabdigooda oo ka yaraarda waxay dadku horta faraawalka macnihiisa ma yaqaanaan الورد الورد waxa weyn ajmal shay fi alxayaa waa waxa ugu quruxda badan bini aadam uu guddoomsiyo qofka macnihiisa fahmaya sheegaya naga wada guddoon dhamaantayo halkana waxaan soo dhignay oo aan doonaynaa inaanu ku tusno keegii lagugu talagalay waxaan u malaynayaa special guest baa tahay wariye aad qiimaha aad la leedahay Kalsan TV ayaa waxa halkan ku taalo welcome amal to the Kalsan TV waa keega waa arkaysaan asxaabta kulli waxa khasab anigu waan ugu horeynayaa insha Allah taala asxaabtuna halkaas way nagala cuni doontaa iyaduna Ahmed aan xagaa ka soo bilaabo
gabagabadii barnaamijkeenu joognaa yaad salaamaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa in waxaan salaamayaa waalidkayga igu qaaliga ah waxaan salaamayaa xaaskayga nasra cabdilaahi cabdi xaaji cumar eena cabdilaahi jawaan labadayda caruura jamiila iyo amiin waxaan salaamayaa inantayda ere hargeysa ii joogta axlaam iyo hooyadeed waxaan salaamayaa walaaladayda halkan ila jooga walaalkayga Denmark jooga walaaladayda hargeysa jooga iyo ehelka meel kastoo ay dunida joogaan aad baan u salaamayaa waxaan mar labaad ku celinayaa amal oo walaashay qaaliga waxaan leeyahay ku soo dhawow insha Allah si khayr leh kuugu dhacdo barnaamijyadaada waan sugaynaa in waananu ku taageersanay waananu ku sii taageerinaa insha Allah si in Cabdi Goodna waan u mahad celinayaa opportunity-ga in Amina thank you very much it's a pleasure to meet with you thank you Amina كفاية في سلام سلام عبد قال هرت مركز روح السلام يا كلسن تي في الله يهي thank you very much لو أنت نسود ويسين عبد قال سيجارة يكون سلام يا ولا شيء أرجع لها هي أمال كيسة وحن كلها يكسود وكلسن تي في لا يوحى كبر يسدا يوسف كبضنبا يبرمج هذا واحد صوت ده all your fans they waiting زما ما شاء الله والله يقول إن شاء الله إن شاء الله أمل عبد قاد عبد قاد هيستا كيف هيستا يا سلام marka ugu horeysa adan ku salaamay Cabdi Allah yaasik waxaan salaamay labadeeda waalid oo adduunka ugu jeclay hooyaday Seenab Cabdi Cilmi aabahay Kaysa Cabdi oo labaduba London ila joogaan Allah hadaayo cumrigoodan hay dheereeyo waxaan salaamayaa kale caruurteedan adduunka ugu jeclay afarteeda caruur waa Guuleed waa Seenab waa Aadam waa Xanaan waxaan salaamayaa dhammaan asxaabteeda adduunkan ugu jeclay ugu horeysa Aamine asxaabteedii barnaamijka doorka haweenkii kala qayb qaadan jirtay waxaan salaamayaa kale dhammaan taageerayaasha barnaamijka doorka haweenkii wax rag buu noqonayaa door haween ma jiray rag baan ku soo darayaa dhammaan waxaan salaamayaa waxa isagoo waliba magac cusub leh adag leh waliba magacana maskaxda ka guuxaysa Cabdi Good waankeyga caanka waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ee meel walba dunida joogta ee Soomaaliyeed aan jecelahay adduunka daafiisa aad iyo aad aniga taageera in badan ay la soo shaqeeyay asxaabta Facebook aan salaamaya asxaab gaar oo qalbigayga iyo maankayga ka maqnayn baan salaamaya oo talada ila wadaaga oo barnaamijkayga ka dambeyn jiray kuwa caawin jiray waxaan salaamaya kale wax walba gabadh walba Soomaaliyeed oo barnaamijkayga la qayb qaadato dhibaatada soo bandhigtay oo ii quuday walaalnimo in anigu sirteeda banaanka aan u soo saaro oo wajigeeda aan qariyo oo aan sirteedana u hayo intaan dhimanayo waxaan diin sheegayaa dumarkii Soomaaliyeed ee barnaamijka ka soo qayb galay hadii dumar dhibaatooyinkooda la soo dhigay banaanka ama laga noqday makhruuq ama laga noqday jalas walaal aan ku dayno ilaahay qofka xun waayo qofka xun ilaahay baa lagu daayaa lagama hadlo hablihii soo wada bandhigay barnaamijyadoodana ilaahay waxaan uga baryaa guul ilaahay waxaan uga baryaa walaalo inuu qof walba ilaahay meeshuu ka iilan yahay ka caawiyo wuxuu baahan yahay ilaahay siiyo Soomaalina ka wada dhigo qacan qura oo isjeclaano walaalayaal oo dadka wayna la yaabeen aan iska dayno waxyaabaha la yiraahdo qabyaaladda iyo qabiilka iyo aqal xumada aynu ka faa'iideysano qofka cilmiga leh wax garanaya rasuulku wuxuu yiri salaatu wasalaam بلغ عني ولو آية كلمة قرأ يعني كده ما كان عندنا إنما المؤمنون أخوة إن نقول ضد ولا لا إسكوا ذا كوبن أربعين سلامة وحنا مركلة سلامة يا وركب سوق ليه ما عمرك كلسن تي في ما سلامة إحنا ولا نقول يتي في إنه إلهي سبحانه وتعالى كده تي في ده قصة رأيه وحسبنا قصة كردان يا إنجنير هذا هالكافردية كلتون بان سلامة يا صاحبي ده كلتون برامج قرب نصور ده هذا سديد ده يدمنتي مش شغالة لما سلامة يا أنا وده شعل وأمل كيسة وأنا واحد ضمبي أنا واحد دوني أسوق بقبيل لكن أنا حل سلام. أيه. وركب سعود لكن رخصة. ما يوين سيد خسر إن أنا وحنا بان سلامة يا دمان أمد الصوماليين وحنا قارو سلامة يا نور النور. ما شاء الله. الله يعيشك إذا سلامت يتكلم أنت عيد كلام الله هينا. عاد بكم مهدي عبد القادر مرة. وحنا إذا كسوق بقبيل يا برنامج كيني سراع في الصوماليين سدويتي عمل كيسي وأنا لا هي داود يال كذا بايو كل الحسنة. نبت قليو.